السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والله خالقه channelkeena kusoo dhawaada haddii ilaahay ka raali noqdo. maanta waxaan ka hadlaynaa aayad quraan ah marna duco ah. aayadan waxay soo xasuusisay qisooyin dhowr ah oo midkood maalin dhow la iiga sheekeeyey. aayaddu waxay ku jirtaa Aali Cimraan. wuxuu Alle yiri muxuu dhahayaa qul illaahumma maalikal mulk, waxaad ku tiraahdaa boqorka mulki oo dhan leh way Alle, tu'til mulka man tashaa'u, cidduu doono ayuuna mulkiga siiyaa. aayadan qofka haddii uu barto fahmana iimaankiisay kor u qaadaysaa, qanaacadiisay badinaysaa. aayad kaloo Alle ku yiri wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaa Allah, idinku wax ma dooni kartaan, macnaha rabitaankiina wax kuma ahaanayaan ilaa ilaahay wax uu idinla doonay ma ahane. tu'til mulka man tashaa'u wa tanzicu lmulka miman tashaa'u, markuu asagu yahay boqorka boqorada, cidduu doonana mulkiga gacanta u geliyo, haddana waa isla asaga midka cidduu doono ka hayuubiyo. qof boqortooyo haystay ama madaxweyne ahaa ama meel manager ka ahaa oo waxaad arkaysaa laga tuuray meeshii. alluu ahaa kii marka hore siiyey, haddana asagaa ka diray. qof shalay taajir ahaa oo maanta sabool ahaa jira. maalin dhow waxaa la ii sheegay nin ilaahay noloshii u kala kiciyey oo inta uu guryo iyo gaariyo iyo ganacsiyo leeyahay aan la tirin karin, oo waxaa la arkay maran waxba aan haynin. hantida waxaaba kasii daran caafimaad ahaan aan u fiyoobeyn oo xanuunna ku dhaceen. ninkaas dadkii yaqaanay la yaab bay ku noqotay xaaladiisa. wargoormay wixii oo dhan isbedeleen, wargoormaad sidaan u rifantay. ilaa hadda ninkaasi wax masiibo ah oo weyn oo ku dhacay oo hantidiisii ama dab galay lama sheegin, in la dhacay lama sheegin. ilaahay baa garanayo. aayadaaba kuu sheegayso shalay Allah siiyey hantidaa iyo magacii lagu bartay iyo inuu dadka aqniyada ah ka tirsanaa, maantana dadka saboolka uu ku jiraayo qofkii arkaba uu la yaaban yahay. laakiin kaas maxay ula yaabayaan? soo ma jirin kuwa shalay sabool ah maantana taajir ah? ayagu naftooda cibro kuma jirto miyaa? ilaahay wuu iscadeeyey, khalqigiisana wuu isbaray. qul illaahumma maalikal mulki tu'til mulka man tashaa'u wa tanzicu lmulka miman tashaa'u wa tu'izzu man tashaa'u wa tudillu man tashaa'u. anaa mid ciseeyuu ku yiri oo cirkaa geeyo, sharaf u yeelo, dadka jeclaysiiyo, wax walba oo karaamadiisa kor u qaadaya, hadday maal tahay, hadday magac tahay, anaa kor u qaado oo u yeelo. sida uu midkuu doono kor ugu qaaday, wuxuu Alle noo sheegay kuu doonana inuu hoos u dhigo oo duleeyo. allah ayow hana duleynin. biyadika alkhayr, khayr oo dhan mulkiga la isa siiyo, maalka, caafimaadka, quruxda, sharafka, ciseynta iyo karaamo inuu ilaahay kuu yeelo. wax walbood adiga nimco u taqaano gacantiisay ku jiraan. innaka calaa kulli shayin qadiir. waana mid wax kasta uu doono ay u fudud yihiin, waxna kuma adkaadaanoo waa wuxuu doono sameeye. facaalu limaa yuriid. nin sheekh abaa waxa uu yiri aayadan salaada subax gadaasheedaan bilaabay, waxaan nolosheyda ku arkay natiijo cajiib ah oo ka dhalatay. macnaha wuxuu ku helay isbedel. waxa uuna yiri caadan ka dhigtayoo tan iyo waagaa ma joojinin, sidii baan u akhristaa. sheekhaas waa carab, waxaan u maleynayaa inuu masaari yahay. marka waa lagu duceystaayo aayadan wuxuu qofka dhahayaa allahumma maalikal mulk tu'ti lmulka man tashaa'u wa tanzicu lmulka miman tashaa'u wa tu'izzu man tashaa'u wa tudillu man tashaa'u biyadika alkhayr innaka calaa kulli shayin qadiir. ilaahay baa marka wuxuu weydiisanayaa waxa uu doonayo. haddii aad caafimaad rabto, haddii aad ciise doonayso iyo dhibaatooyinku haysto inuu ilaahay kaa bixiyo,
oo kuwa maanta hoos ku eegaya ama ku yasaaya biri ay kabaha kuu qaadaan, ilaahay baa ciisaha haystay weydiiso. khayr oo dhan allu gacantiisa ku jiraa weydiiso haddii uu fakhri ku hayo, haddii aad dareemayso in lagu dulmiyey. sidoo kale waa inaad indhahaaga meelaha kale ka reebtaa. haddii aan sidaa yeeli lahaa aminkan waxaan igu dhici lahayn, waxyaabahaasoo kale oo inaad iska ilaalisaa. low taftaxu camalu shaydaan, shalaytada camalowda waxay furtaa albaabada camalka shaydaanka. marka ilaahay ku kalsoonow, aayadan akhriso, waxaad yeelanaysaa khushuuc, waxaad ogaanaysaa wax walba oo u baahan tahay in aysan meel kale jirin ilaa alle xaggiisa mooyaane. marka taa waxay kaa soo reebaysaa in aad ka leexato bini'aadinka iyo kuwii aad caawimaada ka sugaysay, oo aad ilaahay talada saarato. niyadaadana way aaminaysaa dadkan waxa ay haystaan ilaahay baa siiyey, anna rabbigaasaan baryaa. ilaahay wuu ku maqlayaa marka aad baryayso, qalbigaagana wuu arkaa waxa uu dareemayo ee culays ah iyo sidoo kale rajada ku jirta ee xaggiisa ahba wuuna kuu rumayn doonaa. ilaahay ma ilaawaayo wixii aad horay u weydiisatay, waxa aad hadda weydiisanayso, xaaladda aad ku jirto. marka isdeji oo mustaqbalka cabsiha ka qabin. haddii ay wax kugu dhaceenna raalli ku noqo, waxaasi waa qadar. alle wuu kuu sheegay inuu asaga yahay midka xaaladaha badbedelayo. wuxuu asaga bixiyana cidna ma hor istaagi karto, wuxuu asaga diidana cidna ma dhiibi karto. in baa shalay xoog lahayd oo luga lahayd oo soconaysay, maantana wiiljeero saaran ama sariirtiiba ku aruurayo in la gediyo ama la soo toosiyo afka wax loo saaro ma ogiye aan ayagu isku filnaan karin. shalay allihii xoogga u yeelay baa maanta kala noqday. mid shalay awlaad la'aan ahaayoo niyad jabsanaa baa maanta ilaahay awlaadii siiyey. mid fakhri ahaabaa taajiray, mid taajir ahaabaa fakhriyey. noloshu waa mid isdaba marmaraysa. cashir kaloo aad u weyn baa marka aayadan ku jiro, waa inaad ilaahay ka magan gashaa musiibooyinka. asagaa mid shalay cisaysnaa duleeyee, ilaahay ka magan gal inta aysan kugu imaanin. alla weydiiso inuu ku karaameeyo, kana magan gal in uu ku baabi'iyo. nin kaloo Soomaali ah baa qolo ila wadaagtay sheekadiisa. ninkaas waxaa la yidhi dukaamadan supermarketka loo yaqaanay ee waaweyn buu lahaa. magaalada ay degan yihiinna wuxuu ahaa waqtigiisii dadka ugu taajirsan ama dadka hantida lagu tilmaamo. laakiin hadda waxaa la yidhi ninkii asaga ahaa waa dadkan wareejiyowga loo yaqaano. dadka intay garbaha ama gacmaha alaab ku qaadaan qayliyo ee alaabta wareejiyo, kuwaasuu hadda ka mid yahaa la yidhi. yaa ninkaas shalay liiska taajiriinta ku daray, maantana yaa wareejiyow ka dhigay, ilaahay baa ka dhigay. gabar kale ayadana mar waxay ka sheekeynaysay noloshii ay soo martay. waxay tiri nolol waxaan ku soo koray dulinimo ah, waxaan u shaqayn jiray reero, waxaan kala kulmay dhibaatooyin aad u fara badan. laakiin hadda waxay tiri anigaa la ii wada shaqeeyaa. ilmaha oo keliya qof baa ii haya oo lacag ku qaata. guriga waxaa iiga shaqeeya mid cunto kariska u xilsaaran iyo mid nadaafadda u xilsaaran. ganacsiyana way leedahayoo dadyow kala duwan baa uga shaqeeya. marka waa in qofka uu noloshiisa wixii dadaal ah yaraysanin. maankana waa inuu ku hayaa sida uu doonayo ilaahay, oo doono unbuu ku heli karaa. wax adiga aad sawiratay iyo rabitaankaaga in aadan meel ku gaaraynin. markaasuu ilaahay kuu kaalmeyn, maadaama aad run ka sheegtay sifadiisii asaga u gaarka ahayd, ee inuu asaga yahay midka umuur oo dhan xukuma, mulkigana uu keligii leeyahay oon cidna shirka kula ahayn. cidda uu asaga la doonana ay helayso, miduu u diidana ay ka qadayso. haddii adigoo og inuu ilaahay yahay midka khayrka ee isaga gacantiisa ku jirto, aad khayrkaa weydiisato, shartana ka magan gasho, dadaalkaagana wadato, alle wuu kuu kaalmeyn. sababtoo ah waxaad heshay sir weyn. waxaad tahay qof calool adayg haysta,
qof alle niyad wanaagsan ka qaba, taladii isaga u dhiibtay, asbaabihiina raadsanaya. waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu albaabada khayrka isaga xukumee noo furo, kuwa shartana naga xiro. roob la'aan iyo abaaro bacan baa jiree, ummadda u duceeyo inuu ilaahay roob nacfi leh noo keeno oo nabadgeliyo iyo caafimaad wato. baadiyaha waa lagu dhib qabaa, dadkii waxay leeyihiin waxay cabbaan, xoolihii waa ka gureen, dhibaatooyinka laga soo sheegaya ma yaro. haddii ehle aad ku leedahay raadi oo xasuuso waqtiyada adag, dadka waa la garab istaagaa. haddoo kale waxaa la yiri xoolaha caano ma qabaan, ayaga way caatoobayaan oo way tabar yareynayaan, cid gadanaysaana maba jirto. haddoo kale suuq ma leh. haddoo kale waxaa la yiri ayagaaba u baahan in qarash la geliyo oo meeshay joogaan biyo loogu keeno. haddii ay waayaanna ilaahay baa naxariis badanee, dadka iyo xoolahaaba halis bay ku jiraan. weliba xoolo waa la helaaye, caruurta iyo hooyooyinka umulaha iyo dadka waayeelada iyo kuwa xanuunsan khatar bay ku jiraan. ilaahay waxaan ka baryaynaa naxariistiisaana deeqda inuu dadka u gurmudo. mar kale waa ku celinayaa fariinteyda, haddii ay kusoo gaarto raadi wixii ehel ah ama qaraabo ama dad aad taqaanay, waxaa laga yaabaa inaad badbaado u noqoto oo maanta ay adiga kugu baxsadaan, berrina uu adiga ilaahay kugu furto oo aad naar kaga badbaado. in la xiriiriyo qaraabadana waa xaq ay leeyihiin. muuqaalkeena intaas ayuu ku egyahay. waad mahadsantihiin.